Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xildhibaan dowladda Soomaaliya ka tirsan oo Maryland ka soo jeeda ayaa laga ceshay eelaboorka oo inuu tago loo diiday. Haddaan ugu cusubtiin subscribe like noo saara. Haddaan ku sii socdo, xildhibaanka magaciisa waxaa la dhahaa Maxamed Cabdullaahi Ciro. Wiil uu dhalay ayaa dhintay, Allah u naxariisto. Arrintaas darteed ayuu rabay inuu safro oo Baydhabo uga soo laabto. Hadalkiisa waxaa ka mid ah sidatan, dhegeysi wacan. saakayto oo taariikhdu ay ahayd 25 bishii 9 2024 waxaan rabay inaan socdaalo deegaan doorashadayda Baydhabo koonfur galbeed Baydhabo. Markaan tagay airportka, nimankii aan u dirsaday body passka waxay ii sheegeen in loo diiday oo ay u diideen niman dhalinyaro oo jooga airportka Nabasuud sheeganay inay u diideen oo la yiri xildhibaanka ma bixi karo, body passna lama siin karo. Iyagii u yeeray, maxay tahay arrintan? Ma idinka wata mise meel kale idinku soo amray? Anagu taliska Nabasuudana laga soo amray yiraahdeen. Marka nimankaas ayaa is-hortaag ku sameeyay. Xildhibaankan wuxuu xaq u leeyahay inuu deegaan doorashadiisa aadi karo, cid uu fasax u qaadanayna ma jirto. Xildhibaanka sideedaba cid weydiin karto ma jirto in uu fasax yahay in kale. Nin askari ah oo garoon jooga warqad ma weydiin karo. Shaqaale dawladeedna ma nihin annaga, askarina ma nihin. Xildhibaanku wuxuu qaataa mushaarka u qaataa waa guno. Shacabka Soomaaliyeed matala deegaan doorashadiisa u socda, awoodna uma laha, sharcina uma laha inuu xorriyadda dhaqdhaqaaqa socodka muwaadinka iyo kan xildhibaannimadaba intaba cidna awood uma laha inay hor istaagto dhaqdhaqaaqa xildhibaanka. Sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in baarlamaanka arrintan way soo noqotay. Aniga kaliya maaha, marar badan bay dhacday oo xildhibaan sareeda hadda ugu dambeysay aniga horeysay. Waxaan rajaynayaa arrintan inuu guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka naftirkoodaba ay go'aan ka qaadan doonaan insha Allah. Haddana waxaan geyn doonaa baarlamaanka kula noqon doonaa is-hortaaga lagu sameeyay. xildhibaano makliga safray saake oo kaar ku dhaceen mise xildhibaano badan ay kula reebeen? Maya, xildhibaano kale ma soconin, anigaa socday. Weliba arrin emergency ay ugu jirtay oo wiil aniga aan dhalay ayaa dhintay, taasidiis ayaan u socday. Runtii waa wax wadanka ku cusub. Ma garan karno yani ninka la yiraahdo Sambaloshe hadda ka hor waxaan xasuusanaa in xilka looga qaaday xildhibaan isagu xiray. Haddana maanta weli xildhibaanadii dagaal ku haya. Marka haddii uu sharciga ka sareeyo, hadda waan arki doonaa. Waxaan rajaynayaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono haddii Ilaahay raali ka dhigo. Baarlamaankan uu go'aan ka gaari doono insha Allah. oo ka wada aragtaan wuxuu leeyahay Sambaloshe iyo dhankaas warqad ka timid darteed baa liigu diiday. Isagoo aan ogeyn oo Soomaaliya oo jooga oo xildhibaan oo xamar jooga ayaa waxaa la yidhi ninkaa kama bixi karo xamar. Marka arrintan xildhibaanada Maryland mar la leeyahay waa wacalo, dadkaas Soomaali ma ah, waa Oromo. Hadda xildhibaanadoodii xataa taasi ayadoo ay u taalla aysan bixi karin. Arrintan ma waxay keenaysaa jacayl dhex mara Maryland iyo Xasan Sheekh, mise waxay keenaysaa nacaybkay sii saaidinaysaa? Soomaali waxaan leeyahay commentiga hoos kusoo qoran maxay dama tahay sidoo Xasan dowladiisu u dhaqmayso. maxaa yeelay
isagaa doortay Sambalosh. haddaan ka gudbo waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo Ethiopia waxay rabtaa Soomaaliya inay kala furfurto oo ay kala daadiso si haddii Ethiopia in lala diro si haddii in Ethiopia lala diriro la damco aysan Soomaaliya oo dhan iskugu raacin bay u kala furfuraysaa. waxaa la yiri Gado waxay rabtaa dowlad gaar ah inay noqoto, waxay rabtaa Kismaayo dowlad gaar ah inay noqoto, waxay rabtaa Baali inay Beledweyne dowlad gaar ah noqoto, Hirshabeelle dowlad gaar ah rabtaa. bal dhegeysta waxaan maqashinayaa ayadoo laga hadlayo wareysigan dhegeysta wacan. Ethiopia waxa ay damacsan tahay horta waxa ay damacsan tahay ku hormar waxay rabtaa Jubbaland inay kala goyso Gado maamul ay ka samayso, waxay rabtaa Hirshabeelle inay maamul ka samayso, waxay rabtaa Somaliland inay isku badarsadaan sida uu sheegay nin aqoonyahan isku sheegay la taliyana waa Abiy Ahmed nin buufis qabanay ilaa ka sababtoo ah Ethiopia ka horeysa Soomaaliya way kala dhaqaaqaysaa buu 5 gobol bay u kala go'aysaa. Ethiopia naga horeysa oo ogiye waxa kamid ah waxa ay rabto inay Hirshabeelle gobol gaar ah ka dhigto maamul goboleed madax banaan ay ku taakulayso ay kala hadashay. waxay hub gelisay aad u tiro badan Somaliland, mid kale oo tiro badan hadda waxay gelisay Puntland. mid hore waa tii uu Xasan Sheekh ka soo gatay oo Cabdi Waaq lagu qaatay. Jubbaland inta kale oo ka hartayna qayb bay ka joogtaa. Koonfur Galbeed hub iyo ciidan ba waa ula diyaar waana dhex joogtaa. waxay bilowday maamul goboleedyadu inay toos iyada ugu xirmaan oo si toos uga amar qaataan. horey uma jirin rajaa laga qabay in la kala ammaan helo. maxaa sababay baa la oran karaa. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku kaambeyn garay anuu garta waa bixiyaa markay qofku uu ka garleeyo ana gartiisa siisa. wuxuu ku kaambeyn garay Soomaaliya heshiisa caalamkan heshiis la markii ugu horeysay oo caleema saar qabsaday madaxdii ka soo qayb gashay u hanweynayd Soomaaliya inay wax la qabsato rabtay buu kamid ahaa Abiy Ahmed. maxaa ku xigay dhinac buu ka maray oo dhinac buu ka maray oo dhinac buu ka maray si uu socday buu Masar isu tuuray. markaas wuxuu ka hadlay qadiyad 100 sano jirtay biyaha ka baxa Nile-ka wabiga Nile waxay ka bilowdaan ka farcamaan buuraha Ethiopia. biyaha waxa ku nool Suudaan iyo Masar ma noolaan karaan biyaha la'aantood. biyaha 10 jeer ay isku dirireen oo hore oo ciidan ahaan iyo dagaal wada galeen oo si toos ah u dagaalamay waligood ay ku dirireen. xafraa u galiyay siyaasad xumo, aqoon la'aan, faham yari. hadalkan iyaantii iri dib u xasuusta waxay keenaysaa Ethiopia inay nala dirto. Ethiopia waxa ku furan dagaalo gudaheeda inay nafis siyaasadeed raadiso way ku khasbantaa. Tigray dhexdoodii baa diriraya. shalay magaalada laga qabsaday iyo dhul dhan baa waxa qabsaday Eritrea ayaa waxay ka qabsaday gobolka Tigray. Faano dhulkeedii almost kulligiis waa qaadatay. Oromo sidoo kale 4 wada soo gala Addis Ababa 4 waa go'an yihiin. waa shibhul maxsuur way yani meel xisaar ku jirta oo hareeraysan bay Addis Ababa u egta. dhankan kaliya ayay u furan tahay dhanka Soomaalida oo kaliya u furan tahay iyo meelo yar yar oo kale. laakiin 3 wado oo muhiim ah xiran ma ujeeda. goboladaasi marka waa go'an yihiin. nafis siyaasadeed buu raadinaya meel uu ku neefsado raadinaya. marka inuu Soomaaliya hub ku daldalo ayuu bilaabay. waxaan rabaa inaan u sheego Abiy Ahmed adeeraad baa u mahadsantahay. annagoo faramaran baan kula diri jirnay kaana adkaan jirnay. hubkaana soo gelinaysidna aakhirka adaan kula dirirayna. soo wad more and more annaguna anfacaya hubkaasi
برينا دتك ودنيين تا قعنتو دقليا انت هذا قعنتو كوهي سنة عقلي يا مسكحة يا قرشدة بالوسو إلينيا si sahlan baa loo fahamsiinayaa cadowga kaliya oo ay leeyihiin inuu yahay Ethiopia iyagaas ka dhicnay kuwa hadda mudaharaadayo iyaga taageeraya siyaasad bay ku taageerayaan ee jacayl Ethiopia ay u qabaan ku taageerimaya musabbixiina fi siyaasadeed buu ka dayay siyaasadii baa ku ciirtay gobollo dhan baa gacanta lagaga dhigay ciidankiisii ugu badnaa baa la kala diray oo awoodda sheegan jiray oo nala kuma dhaco weligeeya nala kama adkaan waxaasoo dhan bix saraakiishiisii ugu sarreysay generaaladii baa ku xiran lascaanood meel uu dhaqaaq u garan lahay ma rabana inuu xilka ka tago hadduu ka tagana wuxuu aaminsan inuu dhimanayo ama la dilayo ama uu meel ku noolaadaba uusan helay inuu ku dagaalamuu rabaa ilaa aakhirka nafis siyaasadeed buu ka dayay isaguna nafis siyaasadeed buu ka dayay Ethiopia xaaladeedu waa sidaas waxay bilowday inay Soomaaliya jarjarto oo ay kala qaybiso حسنا إساقا أفدودي إساقا سببي هدنا أفدودي هد وهي هد تهينا إساقا ديار وهين إنو الله ديرو هدو ديارو هاي ديارة دو هودا كمان عن لها هودا أديد لها إيه صومالي يتماد كلمة هودا إنا لو أديد لها بان كرابسي بحرينسا مدة سنة كبضنين انتاس أو فلايد غورتي غويسو انتاس أو ودن أي تيجي كريوي waxay xarayn lahayd bankruptcy haddana ciidama soo aado mawjada oo laga baqa Addis Ababa adduunku Mareykanku wuxuu sheegay dadkiisa inaysan u safrin Ethiopia caalamka oo dhan saas ay u sheegaan Yurubiyaanka iyo wadamada Westernka oo dhan therefore iyada baabi'i lahayd haddii uu iska ilaawo commissionka yarka ah iyo qaadka iyo lacagta yarta ah oo ay ka helaan hadduu iska ilaawo isaga ka adkaan marka qodobkaas intaasan kale Ethiopia waxay ku hawlan tahay Soomaaliya si u furfuri lahayd xasan baa sababay una fududaynaya qodobka labaad jaawareerka siyaasadeed dawladda Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noo sheegay Xasan Sheekh Maxamuud warqad uu shalay soo saaray hubba Puntland ka soo degay oo hub miyaad ka hadli kartaa soo adiga ma ahayn ninkii hubka caabud waaq lagaga dhacay soo adiga ma ahayn ninkii codka ka duubtay Ethiopia oo caalamka oo dhan siisay adigoo la ustaado hubka ana iska leh hal ii badbaadi adoo la hubka ciidanka iska leh hal ii badbaadi soo adiga ma ahayn ninkii warqadda soo saaray oo caalamka oo dhan tusay oo yiri hubkaas waxa keenay sharci darro ahaa ganacsataana keentay ganacsatadiina dawladda gacanta kaga dhigtay ilaa iyo hadeer cidna ma aadan xirin cidna ma aadan eedayn wax caqaba cunaqabatayna ama waaragtay ciqaaba oo ay la kulmeen ganacsatadaasi ma hayno magacyadoodana ma hayno waa ninkii sheega ma dhaaftay xasanow baashaas aday ku fadhidaa sidii xilligii rooble uu oran jiray aamina waxaa dilay allah u naxariistay kuwii dilay ikraan tahliil allah u naxariistay waana aqaanaa ilaa iyo hadeerna nooma u sheegin magacyadoodii baan hayaa buu yiri masajiyaan hayaa ninkii sheega ma dhaafto sidii oo kale xasanow waa ninkii sheega ma dhaafte aday kula taala ma hayno waxa uu dagaal qaawan ku qaaday koonfur galbeed Xasan Sheekh Maxamuud isagoo la diriraya lafta gareen rabaan inuu meesha ka saaro qaar baa waxay wareejinayaan waa la heshiiyey sheekada waa dhamaatay waxa kama jiraan waxaa lagu heshiiyey NCC inuu ka soo qayb galo meetingkaas national council ama madasha qaranka madasha amniga qaranka oo isugu yimaadaan madaxyada maamul goboleedyada oo xaalado lagu qabanayo UN to wado benina aqbalay isna inuu ka qayb galo inta kaliya loo laakiin inuu kaligiis xamartaga waa diiday xildhibaanadii soo yaacay oo soo xanaaqay oo bay dhaba joogeen in la celiyaa lagu heshiiyey laakiin wax kale oo lagu heshiiyey ma jirto ninkaan doorasho raba inuu qabsado xasanna wuxuu rabaa inuu ka tuuro xasan wuxuu wadaa campaign-ka si hoose beeshiisa hadallo uu u sheegay oo waxaan soo jarayaa shabeellada hoose waa ka soo jarayaa berigii horena uu isku dayey shabeellada hoose waa ka jarayaa koonfur galbeed oo u shaqayn la buu wadaa mar baa waxaa la sheegay inay damceen inay parallel process doorasho kaga qabtaan meesha baraawe iyaduna inay iska soo fashilantay ayay u badan tahay waxaa kaloo jirta
oo la yaab leh oo aan weydiinaya xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri Ethiopia aan la dirinaya sidii uu dhihi jiray shabaab aan la dirin masaajidku tagay mikrofoonku qaatay cadow laba qodob uu ka hadlay qabyaalad uu ka hadlay hubna uu ka hadlay sharci darro hubka dadkan ka qaadaya buu leeyahay wuxuu u dhaaranayaa dadka madaxda oo xamar jooga isagu hub ku haystay xamar ku jooga hadda markuu xilka ka daga sanad iyo barka dibna uu haysan inuu haysto raba goorma marka in hub la haysto oo xamar lagu haysta ay dambi noqoto hadayse dambi tahay wuxuu isagu ugu haystay waa qodobka labaad wuxuu Ethiopia aan la dirinaya Ethiopia haduu la dirinayo qunsuliyadihii Garowe iyo Hargeysa hal xirooyin waa la diiday oo lagama yeelin wuxuu yiri hubka aad soo daldalaysaan joojiya oo warqadii shalay uu kaga hadlayay hubkii Puntland aaday iyadana yiraahdo hubka ayadana waa diiday oo hubkii waa wadaan meel walba hub geliyeen koonfur galbeed waa geeyeen Somaliland waa geeyeen Puntland waa ku hada geeyay galmudug waa geeyeen oo wata adigu aad wax ka geysay Soomaaliyeed hadda markaa tiraahdo ciidamadooda hayga bixin wadanka haday inta ka diideen waxna adag ka qaban maxaad samayn doontaa waxaagu maqawda maqashii waxna ha qaban Soomaaliyeed jeedinaysa Ethiopia hadda la dirirayso ay runtaa tahay hadda kor waxaan ku yiri hadda al-shabaab la dirirayso ay runtaa tahay maxaa ku diray odawaa iyo jeyte iyo ninka la yiraahdo biixi maxaa kugu diray dadkii iconiska la dagaalami lahaa al-shabaab oo la dagaalamayo ka adkaa maxaa kugu diray maxaa u cayris ganacsata keentay waa loogiyaa waxay u socdaan business ma u socotaan waxa keensatay al-shabaab u dhiibay oo wasaaradda gaashaandhigga ku joogo u dhiibay xogta al-shabaab ciidanka u dhiibaya waxaad keensatay dadkii dagaalka baabi'in la sidoo kale hadda waxaad haystaa Ethiopia dadkeedii baa xafiisyada kaaga buuxa diplomat passport buu haystaa Sambology nisu ku jooga Ali Balad asalkiisa Ethiopia haddana dhaatadii waa kan ka iibiyay wasaaradda arrimaha dibadda dhaatadeedii oo dhan waxa dhacday Ethiopia uu ku wareejiyay intuu master kiigi qaatay July buu September 9 wuxuu yiri وانا لها قريب بهالشيء انه هودي كبح خلاص وحين يودن وفرها وجلس عيدن كودا بحا مركا بريت له سيء بحيان سؤال سنكو ويدينيا حدي رونتا تاي جنوري كوديدي بين لا ديرتي ايتوبيا انو بريرتي الى هدير حاد كوميشن ير oo diyaaradooda aad ka qaadato adiga iyo qoyskaaga iyo qaadkaas la keeno aad u siisatay oo u jari laadahay diyaaradooda maxaad isaga celin laadahay dadka maxaa u rabtaa adigoo madaxtooyada ku soo dhaweeyay red carbadna u dhigay ninkii wasiirka arrimaha dibadda ee hore ee Ethiopia haddana ah secretariatka IGAD Walkne red carbad u dhigay sida la ogeeyo soo dhaweeyo la fariistay Ethiopia adoo saa la farfadhiya inaad dadka kale Ethiopiankooda aad ku dirtid meeyay ka yeelaya dhageyso Nabiyullah Shu'aib alayhi salaam markii uu la hadlayay ummadiisa wuxuu ku yiri wama uriidu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ma doonayo inaan idin daba maro waxaan idin ka digayo oo idin ka nahiyeeyo in uriidu illa al-islaha mastata'tu wanaag baan rabaa awoodayda intay igaarsiiso wama tawfiiqi illa billah ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajintiisa oo kaliyana ku kalsoonahay oo ku tiirsanahay عليه توكلت وإليه أنيب إساقان تلساه صدي إساقان أولابتي أو أطوبت كان قفك أمرك بحيني أميركا leading by example وحلي هذا لقربا management تيغان برد leading by example وإنا أدوغو هورتا تصالو نقطاتك هذا أدوغو دادك أدوغو مرتيد وركا شيكتي فعلكا وكدوانا waxaad ka hadlaysaa hub lama haysan karo adaa haysan jiray haddana haysta rabana ina haysatid yaa u diidaysaa marka yaa ka yeelaya waxaad tiri musuq hal la joojiyo masaajidka dhex taagan tahay adiga musuqi ka bilowda kuuna dhamaada yaa ka yeelaya marka daaya inta kalena waa xadaya qaadkii baad gadaysaa oo darooga markaas aad daroogada iska daaya yaa ka yeelaya waxaan kula talinayaa masaajidkan dhulku intuusa kula go'in faraha ka qaad mikrofoonkiisa mikrofoonkaasi waa ku dhibsaday dadka ku hor fadhiyana qalbaday ka habaarayaan oo ka caayay marka iska daa mikrofoonkan faraha ka qaad
meelo kale ka hadal madaxtooyadaada iyo meelaha beentaa ka sheegaysa ka sheeg qodobka labaad oo ka hadashay qabyaalad buu ahaa qabyaalad miyaa xasan ka hadli karaa xasan qabyaalad qof ah weeye waxa uu ka samaysan yahay qabyaalad madaxtooyadiisa fiiri cidda ka shaqaysa la taliyayaasha uu magacaabay oo dhan fiiri qandaraasyada uu bixiyo fiiri qoyskiisa hoose dhaafilaada qof kasta uu meel ka qaado wuxuu ku bedelaa qof kale wuxuu yidhi dadka yaan la caayin oo la kala fogeyn wiilkii dadka caayay oo wacallada ku sheegay qabaa'ilka dhan hoostu gashaday because waa adeerkiis adeer buu yahay shalay buu u caytamay oo farmaajo waa mariixaan iyadaasuuna shaqada ku siiyey haddana intiibuu ku jooga soo ma arkaysa wiilkii kale oo reer koonfur galbeedka ahaa oo la taliyaha u ahaa oo isagu dhanka kale ka soo jeesto yidhi etoobiya annaga noo sheegaysaan idinka hoosta ku wata deg deg buu u cayriyey shaqadiina uga qaaday mid uu adeer u yahay oo kaluuna ku bedelay qabyaalad buu ka sheekaynaya marka kan waa looma ooyaan isaga agtiisa kan kale waa lama taabtaan haa nin gobaho laandheeraa wey lama taaban karo cidda wey qabyaalad buu ka hadlayaa askari uu dallacsiiyey waa reerkiisa askarta uu qoray oo dhanna waa ciddiisa 90% wuxuu qortaa waa faamiligiisa wuxuu ka sheekaynaya qabyaalad waxyaaba aadan geyin baa jira maasejiye aadan xambaari karin baa jira sidaas aayaddu u sheegayso wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu ficilkaaga iyo qowlkaagu hadday iswaafaqsan yihiin dadku waa ku rumaysanayaan laakiin labadaas hadday iska soo horjeedaan adan cidina kaa dhegaysan mayso warkaa yaa rabtaa inay qabyaaladooda tuuraan adiguna taada jeebabka ku wadatid yaa rabtaa inay adigu intaad xoolaha ummadoo dhan boortid xaraashkii waddankii oo dhan goortaa dhammaysatay baad safaaradihii maraysaa caalamkii baad u baxday ma arkaysaa musuq baa ka hadlaysaa qaadkaad soo waaridaayo adigu gadaayo commissionka aad ka qaadatay etoobiya weli diyaaradeeda ku noosha shalay qunsuliyadihi alla xiraa tiri waa diiday waxna kama aada qaban waxba kama qaadi kartid sababtaa waxa keliya aad qaban kartid hadda waa inaad ciidankana baxa tirahay diyaaradoodana mancisid ciidankooda bixi mayaan diyaaradoodana waxaan ka baqayaa inay xoog ku degto haddaad xamar u diiday inay magaalooyin kale ka degto oo sidaa u wado ma arkaysaa marka sidaani dowladnimo maahee niyow waxaad yeeshaa waa kula talinayaa lacagtaana urursanaysa inta iska daysid etoobiya si ay isaga dhicisa haddaa rabtid jabhaday kugu furaysaa maamul goboleedyadii oo dhan jabhaday u beddeshay jabhadihii waagii hore ay haysan jirtay oo kale ayay u noqdeen kulligood maxaa kuu talaa jabhadahooda la tasho keen xamar uga wada fur xafiisyo hub iyo dhaqaala sii lacagtaan aa urursanaysa cuni mayside 70 baad kor u dhaaftee si iyaga oo dalka ku difaac markaa dadku waa ku garab istaagaya adiga haddaad bilowdid difaaca dalka ummaddu waa ku garab istaagaysaa laakiin khuraafaad cidina kaa dhegaysan mayso mikrofoonkaana niyow iska daa ammaan sii ha ku ceeboobin kuba ceebowdaya intaa ha u dhaafin in dhulka kula go'aan ka baqaya adoo been akhriyaya masaajid ilaahayna dhex fadhiya baan ka baqayaa wallaahi marka adigu naftaada u turo iska daa waxaan wallaahi xasra bay kugu noqonaysaa saasay rabtaa Itoobiya inay Soomaali intay u kala daadiso ay cunto saasay rabtaa waana caqli ay soo fakartay waxayna caqligaas ka aragtay Soomaalida qayb ka mid ah inaan caqliba lagu arag iyo dadnimo iyo damiir qabiil kaliya iyo qurun inuu qalbigooda ka buuxay aragtay sirdoonay ku soo daasatay Soomaaliya siiba koonfur Itoobiya marakan waxay ku dadaalaysaa Soomaaliya inay barla kacdo adan waa arkayseen badii seelac inay rabto waa arkayseen hadda Soomaali dadaan waxba ka qaadi karin inay hungureysato Soomaali ayada isku geysatay Xasan Sheekh Maxamuudna isaga la rabay inuu isku wato dowlad goboleedyadiisa laakiinse qabiil buu ka doortay ninka hadda xafiiska uu u dhiibtay wiilka uu shaqada siiyey
xilka weli lagama qaadin. Rabeele wuxuu yiri waa wacalo lagama qaadin. Maxaa loo qaadayaa awalba shaqada waxaa lagu siiyey farmaajo waa mareexaan buu shaqada awalba ku helay. Marka xasan sheekh maxamuud qabiilkan isaga ku jirin Soomaali hadday ku jirto caqligiisa tusay. farta qortid baa madaxweyne lagula qorayaa barnaamijka halkaas aan uga baxaya daawashadana ku mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.